xiriirkii jacayl ee Maama Malyuun iyo Dirisle Cabdi. Dirisle waxa uu ku noolaa Soomaaliya muddo badan oo noloshiisa ka midna ku soo qaatay waddanka gudihiisa. Isagoo waddanka gudihiisa jooga ayaa waxa uu xiriir la sameeyay qof dumar ah oo magaceeda uu ku sheegay in la yiraahdo Malyuun. Waxa ay sheekaysanayeen muddo 4 sano ilaa 5 sano ah. Waxa uu xiriirka qaribnaa uu socdo waqtigana uu isdaba guro. Dirisle waxa uu maleynayay gabar, maxaa yeelay waxa ay u soo diri jirtay sawir gabar ay daris ahaayeen. Aaladda wax la iskaga diray ee casriga ayaa la isticmaalayay, saacadba saacadda ka dambeysa ayaa la iska warqabi jiray. Alla adduunka dhib badana, cabku haddii aad qofaad jeceshahay kaa maqan yahay. Dirisle waxa uu ku adkaatay noloshii oo waxa uu ismootiyey inuu joogo meesha ay Malyuun joogtay. Dhanka kale, Malyuun oo markii hore been la jilaysay wiilkan da'da yar ayaa isla markiiba soo baraarugtay oo indhaha soo kala qaaday. Waxa ay bilowday inay is-hilmaamsiiso oo xiriirkii intii badneed ay la soo jilaysay ay ka dhigto wax kama jiraan. Ileen waqtigii ayay ku luminaysay. Waxa ay bilowday in ay wicitaanka ku yareyso, maxaa yeelay horey bay Soomaali u tiri af wax cunay xisho. Mararka qaar waxaa laga yaabaa in uu soo waco, taleefankana ay ka qaban weyso. Alla xanuun jacayl badana, afkeedana hadal sax kama hayo. Waxa uu ku fikiraa war amay dhimatay, war amay waalatay. Isla markiiba isagoo oo isku jawaabayo ayuu isdhahaa mashquul ayay ku jirtaa oo mar dhow ayay kula soo hadli doontaa. Dirisle waxa uu bilaabay inuu asxaabtiisa ka haro, xitaa iska daayo suuqyada iyo garoomaha. Waxa uuna iskugu soo gurtay xaafadiisa iyo iskuulkiisa. Waxa uuna noqday qof iska fikirayo. Sahal maahan caashaqu hadduu si fudud kugu galo, silaa ciyaar rafaad iyo si xun ayuu ku dilaa. Iskuulka marka uu joogo waxa uu ahaa arday kaftan badan. Kaftankii faraha badnaa uu yaraaday oo waxa ay noqotay afka juuqda gabay. Mar waliba waxa uu ku fikiro waa Malyuun umbasa. Ayada dhankeeda waxa ay garan la'dahay waxa ay ku hadasho oo waxa ay dareentay wiil ay ayada dhali karto in ay jacayl ku beertay oo haddana runta ay u sheegi karin, maxaa yeelay sawiraantii ay u dirtay iyo wajigeeda isma lahayn. oo iyadoo 60 jir ah ayaa ay waxa ay garan weysay in ay runta u sheegto. Alla dumar ilnugla oo hagardaama badanaa. Waxa uu kor fadhiyaa taleefanka, maxaa yeelay waa meesha kaliya uu ka heli karay xilliga. Maxaa yeelay xilliga waxa ay kala joogeen dal iyo dibad oo meesha la iskala xiriiri karo waxa ay ahayd baraha bulshada. Waqti markii la joogay oo xaaladiina xumaatay ayaa isagoo iskuulka ka imaaday fariintii Malyuun ku arkay taleefankiisa shaashadiisa. Sidan ayayna u dhacaysay. La soco qaybtii labaad ee silsiladii qisadii jacayl ee Dirisle Cabdi iyo Maama Malyuun. Taaba linkiga hoos ku yaalo si aad ula socoto silsiladii qisadii jacayl ee Dirisle Cabdi